السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسود هذا مركله إيوه FPL Somali وأنا جوا هذا عبد العلي إيوه channel كان يوتيوب كا FPL Somali. صاحبي هلا وحين وصل السعودات بعيارات كسديدات أو كل مهمة يجران برامج كنا وحن كسو قادنا كل ماذا أي معمولياش كنت شنكران إيوه كابتن دور الشذا إيوه ولو عيارنا هذا فرقة. صاحبي المركور وحنا حسيني أنا تصور بيرتان channel كان يوتيوب كا FPL Somali إيوه لنا عاد فيسبوك إنستغرام كا تويتر كا oo aan bogo ku leenahay sidoo kalena waxa jiro group WhatsApp ah oo aan sameynay oo maamulayaasha qaar ay aad uga qayb qaataan inay ka sheekeeyaan ciyaareedka iyo wararka la xiriiro Fantasy Premier League. saaxiib marka hore inaad hubsatay oo aad furatay channelka qaybta notification-ka sidoo kale hubso. haddii aan u gudgalno markaa ciyaareedka sideedaad iyo kulamada la ciyaari doono waxa ugu soo horeeya kulanka maalinta Sabtida 16 October la ciyaari doono duhurnimadii waxaana wada ciyaari doona Watford oo martigelinaysa kooxda Liverpool waxaana ku soo xiga Aston Villa iyo Wolves. Leicester City oo martigelinaysa Manchester United ayaa jirta maalintaas sidoo kale Manchester City ayaa martigelinaysa kooxda Burnley. Norwich iyo Brighton ayaa is arki doona. Southampton iyo Leeds ayaa sidoo kale is arki doona. Brentford iyo Chelsea ayaa iyaguna is arki doona. maalinta Axadda ah oo 17 October-na waxaa ciyaari doona Everton oo martigelinaysa kooxda West Ham, Newcastle iyo Tottenham oo sarki doona iyo kooxda Arsenal iyo Crystal Palace oo ugu dambeeya maalinta Isniinta ah oo kulan cusub ciyaareedkan kulanka ugu dambeeya uu yahay kulankaas. marka saaxiibayaal waxaan fiirinaynaa kulamada muhiimka ah ee maamulayaasha ay sida gaarka ah dhibcaha uga tashan karaan ciyaaryahanada. kulanka ugu soo horeeya dabcan ay kooxda Liverpool ay isku arki doonaan kooxda Watford ayaa ah kulanka ugu soo horeeya. marka kulankaasi waxa uu muhiimad gaar u leeyahay maamulayaasha maadaama kulankaasi ay kooxda Liverpool oo ciyaaryahanno badan maamulayaasha kaga tirsan gaar ahaan ciyaaryahanka loo badinaa in toddobaadkan kabtanka ugu badan la saarto Mohamed Salah uu u ciyaari doono. kulankaasi markaa fiirino dhinaca Liverpool waxaa la rajeynayaa inay ku soo laabtaan tababarka ciyaaryahan Diego Jota iyo Alexander Arnold oo labadooduba la filayo in ay kulamadaasi ay kulligood aysan ka soo muuqan doonin sida la filayo. Jota ayaa dhaawac la soo laabtay si halka Alexander Arnold isna shaki uu ku jiro inuu ku soo bilowdo kulankan. ciyaaryahanada kale la filayo sidoo kale inay ku soo bilowdaan oo 75% waxa ugu horeeya Firmino oo doorka Diego Jota laga yaabo in lagu soo bilaabo. dhinaca Watford markaa fiirino kooxda Watford waxa uu ciyaaraya ciyaaryahanka maamulayaasha inta badan ee toddobaadii la soo dhaafay hadda formka fiican ku jira qiimihiisuna uu sare u kacay waa Malang Sarr qiimihiisu waxa uu gaaray 6.1 ayuu gaaray. marka maamulayaasha waa door muhiim ah oo ay ku xisaabtami karaan. inkastoo aan xasuusano in kooxdan Watford xil ciyaareedkii Liverpool ay horyaalka ku guuleysanaysay ee ahayd kooxda ka jabisay rikoorkii guul darrada iskaga ilaalinaysay ee kooxda Liverpool taasoo 3-0 kaga badiyay. marka kulankana waa kulan ay kooxda Watford garoonkooda ku ciyaari doonaan balse hadda waa ay kala duwan yihiin. Watford waxa ay soo saxiixatay macallin cusub oo Claudio Ranieri oo kooxda Leicester kula soo guuleystay koobka Premier League ayaa hadda tababar u ah. marka kulankani wax baa laga filan karaa maamulayaasha ilgaara ay ku hayaan. kulanka kale waa kulanka ay is arki doonaan kooxaha Wolves iyo kooxda Aston Villa. kooxda Aston Villa waxa ay wajahaysaa idan mar kale caqabad kale oo ciyaaryahanada soo ciyaaray kulamadii saaxiibtinimada ee horyaalada amaba qaramada South America waa ay ka maqan yihiin isbuuc ciyaareedkan maadaama protocolka COVID-19 uu yahay in ciyaaryahanka uu marka uu imaado uu karantiil galo. marka kooxdan waxaa haysta in ciyaaryahanada Buendia Martinez iyo ciyaaryahanka Douglas Luiz ay ka mid yihiin ciyaaryahanada aan ku soo bilaaban doono kulankan. dhinaca kale Wolves waxa uu ciyaaraya labada ciyaaryahan ee qaab ciyaareedkooda aad u wanaagsan yahay. ciyaaryahanka Koreanka Juan lagu magacaabo iyo Jimenez oo laba caawin sameeyay ciyaareedka la soo dhaafay in ahaa weeraryahanada ugu fiican labadooda ayaa ah. marka dhinacaas iyo dhanka daafacyada oo Wolves ay yihiin daafacyada hadda qiimahooduna ay raqiis yihiin qaab ciyaareedkooduna uu wanaagsan yahay. inkastoo ay haysato cilad dhinaca abuurka ah oo hal abuurkoodu dhinaca hore aad u yaryahay haddana waxa ay fiican yihiin oo dhinaca daafaca ayaa qiimo jaban lagu helaya. kulanka maalinta Sabtida ah ugu xisaab badan la dhihi karo
ama ugu weyn waa kulanka ay isku arki doonaan kooxda Leicester City iyo kooxda Manchester United. kooxda Leicester City waxay ku jirtaa qaab ciyaareed ka duwan kii hore ay ku jiri jirtay oo isbuuc ciyaareedyadii hadda la soo dhaafay sidii ay ku bilaaban jirtay kuma aysan bilaabanin. xitaa dhanka Yurub waa ay caqabad ayaa ka haysata. Manchester United dhinaca gurigeeda markaa fiirsid culays ayaa ku soo wajahayay oo ilaa ay xilli ciyaareedka la soo dhaafay gurigeeda ma aysan ku wanaagsaneyn. laakiin isbuuc ciyaareedkan waxa ay la ciyaaraysaa kooxda Leicester City. laakiin Manchester United waxa haysta culays kale oo ah dhanka daafacyada. ciyaaraankeeda kabtanka ahaa Maguire lama hubo kulankan inuu kusoo bilaabanayo. waxaa sidoo kale dhaawac la soo laabtay Varane ayaa la soo laabtay dhaawac. marka xagga daafaca ayaa culays ka jira. dhanka kalena waxaa form fiican hadda ku jira Jamie Vardy oo dhinaca gool dhalinta markaa fiirsid ku jira gool dhaliyaasha ugu horeeya. inkastoo kooxdiisa aysan ka muuqanin haddana waxaa u soo laabtay garabka kale Iheanacho ayaa asna gool isku soo dhaliyay kulanka hadda la soo dhaafay. marka Manchester United culays ayaa halkaas ay kala kulmi kartaa. waxaana suuragal ah in rikoorkeedan hadda ay wado gool dar la'aanta labada kulamada aadka u badan ay ku soo ciyaarayso kulamada dibadda in laga soo jabiyay ayaa suuragal ah. weeraryahankeeda Cristiano Ronaldo waxa uu soo dhaliyay 3 lay. dhankaas waxay ka haysataa dhinaca weerarka markaa fiirisid waxay haysataa ciyaaryahanno gool dhalin kara. Cavani ayaa ka mid ah. xagga khadka dhexe Fernandes ayaa ka mid ah. Pogba ayaa ka mid ah. ciyaaryahanadaas wax way dhalin karaan laakiin dhanka daafaca oo markii horeba Manchester United khadka dhexe culays uu ka jiray oo McTominay iyo Fred ay aad isku fahmi la'aanayeen. haddana culays kale oo dhinaca daafaca ayaa soo kordhay. kulanka kale waa kulanka Manchester City ay martigelinayso kooxda Burnley. Manchester City iyo Burnley waxaan ku xasuusanaa in kooxda Manchester City ay inta badan kulankan waliba ay Burnley mar walba 5-0 ugu geyn jirtay. kulankan waa kulan kale oo la filayo in mar kale ay kooxda Manchester City ay si fiican uga badiso. waxaan xasuusanaa in isbuuc ciyaareedii hadda la soo dhaafay sida kulankii Manchester City Arsenal ay 5-0 uga badisay. marka kulankaana waa kulan inta badan gool ka dhaliso. waxaana suuragal ah in halkaasi ay gool badan ay ka keento. ciyaaraneeda qaab ciyaareed ku jira ama doorkeeda bilaabashada ilaashaday hadda waxa ugu soo horeeya Grealish iyo Bernardo Silva iyo ninka hadda sida dhammaystiran hadda ay fitnesskiisa u soo laabtay waa Kevin De Bruyne. isna waxa uu ka mid yahay doorarka muhiimka ah ee farqiga ah waliba la filayo in dhibco badan ay ka keenaan. Gabriel Jesus asaga waa ninka ugu dhibcaha badan ilaa hadda kooxda Manchester City oo 16 dhibcood ayuu haystaa dhinaca marka la weerarka iyo khadka dhexe. marka ninkaasna waa nin muhiim ah oo maamulayaasha maadaama uu ka soo hormaray saaxiibkiis Ferran Torres oo isna goolal soo dhaliyay xulalkii Nations League. haddana waxaa markasta ka soo hormaray saaxiibkiis Gabriel Jesus. dhinacdaas ayaa dhibco laga filan karaa. xagga Burnley mar walba weerarkeeda ayagoo ku dhisan banonigan hawada la soo gelinaa crosska ku dhisan daafacyada dhaadheer gool waa laga filan karaa. laakiin suurtagalnimada aad ay u yar tahay oo kulankan waxay ka hor imaanaysaa kooxda Pep Guardiola oo aad u fahmay tababare Tom Dykes oo aad ayuu u fahmay goolal ayuuna ka dhaliyaa. kulanka kale waa Brentford iyo Chelsea. kulankaas oo maamulayaasha ay dhibco ay ka fiirinayaan. kooxda Brentford waxaan xasuusanaa in kulamadii hadda ugu dambeeyay sida kulankii Liverpool ay 3-3 la soo gashay inay sidoo kale waxay ka soo badisay kooxda West Ham oo ay 2-1 uga soo badisay. dhinaca weerarka iyo banooni haysashada aad ay u fiican tahay. waa ciyaaryahanno xoogan oo diyaar inay gool dhaliyaan. halka Chelsea sidoo kale ay la mid tahay oo dhanka daafaca ay ka dhisan tahay. inkastoo Rudiger uu yahay doorka kaliya ee ka maqan waxa uu ahaa ninka loogu isticmaalka badan yahay intuu toobada tickle uu hayay xilli ciyaareedkan. inkastoo taas ay jirto haddana kooxda Chelsea dhanka daafaca mar walba way ka dhisan tahay oo waxay haystaa ciyaaryahanno aad u badan oo daafaca. kooxdan Thomas Tuchelna khadka dhexe iyo daafaca ayuu mar walba kusoo dhisaa si uu gool u dhaliyo. dhinaca counter attack oo doorkeeda hadda uu hogaaminayo Timo Werner iyo Lukaku ayaa ah halka goolasha ugu badan ay ka helaan. kulankaasi waa kulan marka la isdhahayo maamulayaasha labada dhinacba waa gool ay ka heli karaan. dhinacan Brentford waa Toney iyo Mbeumo oo ah asna ciyaaryahan hadda qiimihiisa xataa uu sii kordhayo oo maamulayaasha ay dhibco badan ka filayaan. kulanka haddii aan u gudubno marka kulamada la ciyaari doono maalinta Axadda ah kulanka ugu soo horeeya waa Everton iyo West Ham. kulanka Everton iyo West Ham hadda qaab ciyaareed fiican ay ku jirtaa. inkastoo kulankeeda hadda ugu dambeeyay laga soo badiyay oo Brentford ay 2-1 uga soo badisay. haddana waxay niyad ka haysataa ciyaaryahannadeeda aadka hadda isku soo fahmay ilaa khadka dhexe ilaa daafaca
ilaa weerarka waxay ka helaysaa rajo aad u wanaagsan. sidoo kale dhinaca Yurub qaab ciyaareed fiican ay ku jirtaa oo Europa League ilaa hadda 6 dhibcood ay ka haystaan. marka waxay haystaan niyad wanaagsan. kulankaana waxay kusoo ciyaari doonaan kulan dibadda ah oo ay la ciyaari doonaan kooxda Everton oo qaab ciyaareed fiican ku jirta marka la dhaho gurigeeda. ilaa hadda gurigeeda wax dhibic ah kumaysan luminin oo kulamadii hadda ay kusoo dheeshay oo dhan way badisay. tababare Rafael Benitez waxa uu aad u isticmaalay labada ciyaaryahan oo uu qiimaha yar ku keensaday waa Townsend iyo Demarai Gray. marka Doucouré oo qadka dhexe ah oo asna daafacyada iyo qadka dhexe dhinaca gool dhalinta isku haya asna waa wax uu ka mid yahay doorarka farqiga ah ee maamulayaasha ay dhibcaha ka filayaan. kulanka kale ee maalinta Axad la ciyaari doono maamulayaashana ay dhibco badan ka filayaan waa kooxda Newcastle oo ayadana arki doonta kooxda Tottenham qaab ciyaareedkii hadda yani xilli ciyaareedka bilowgiisa hore waxay ku bilowday guulo fiican oo tababare Nuno Espirito Santo la dhahay waa kooxdan hore u socda ay muujisay maadaama xaalad adag ay soo wajahday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay oo marna uu hayay Jose Mourinho marna uu hayay ciyaaryahankii hore oo kooxda Tottenham markii dambe tababare isku bedelay. marka kooxda marka heerka soo martay kulankani waxa uu u yahay kulan ay mar kale hadana ay wadada guusha ku soo laaban karaan oo ciyaaryahanadoodaas ay hogaaminayaan Son iyo Harry Kane oo ilaahay hadda goolka aan wali soo taabanin ay la filayeen inay dhibco ka keenaan. xagga Newcastle wali guul fiican oo ilaa hadda la taaban karo maysan gaarin laakiin ciyaaryahanadooda dhinaca weerarka oo Saint Maximin ugu horeeyo oo la leeyahay wuxuu ka mid noqon doonaa ciyaaryahanada ugu xiisaha badan maadaama hadda kooxda Newcastle ee la wareegtay koox ama ganacsato ka soo jeeda Sacuudiga. waxaa la filayaa in kooxdan ay waji kale la soo baxdo oo usbuuca ugu soo horeeya suuqa kala iibsiga bisha January ay isbedel weyn ay samayso. marka kooxdan koox rajo weyn laga leeyahay waaye oo maamulayaashana ay wax badan kaga tashan doonaan. kulanka ugu dambeeya usbuuca waa kulanka ay kooxaha Arsenal iyo Crystal Palace ku arki doonaan maalinta Isniinta ah. kulankaas oo xilli dambe la ciyaari doono. kulankaasina maamulayaasha ciyaaryahanada da'da yar ee kooxda Arsenal Saka iyo Smith Rowe waa doorarka ugu horeeya ee ay ka qaadan karaan halkaas. inkastoo xagga weerarka ilaa hadda goolinta ay culays ku tahay oo ilaa hadda 5 ciyaaryahan oo kaliya ay gool u dhaliyaan haddana waa kulankan Crystal Palace dhankooda ay laftooda Zaha iyo Odison Odegaard iyo ciyaaryahanka da'da yar ee Galaqa waxa uu ka mid yahay doorarka laga filan karo dhibco. bal markaana aan fiirino ciyaaryahanada farqiga ah ee maamulayaasha ay fiirin karaan. ciyaaryahanka ugu soo horeeya ee farqiga noqon kara waa oo haysashada markaa fiirisid ay aad u yartahay inta haysata waa Timo Werner. wuxuu ka hormaanaya Brentford waxa uu tuuray ilaa 8 shot oo goolka ku tuuray ilaa hadda waa ninka labaad ee ugu badan marka laga soo tago Lukaku. marka ninkaasi waxa uu noqon karaa farqi oo dhibco sameyn kara. saaxiibkiis Mason Mount waxa uu ku soo laabtay doorka ku bilaabashada oo hal abuurkiisa ayuu la soo laabanaya. marka halkaasi waa door fiican. ninka kale waa Kevin De Bruyne waxa waaye farqi asna oo maamulayaal badan ma haystaan oo waxa uu noqon karaa farqi ay dhibco badan kaga tashtaan. marka fiirisid kulankan ee uu ka hor imaanayo kooxda Burnley ilaa iyo labadii xilli ciyaareed hadda ugu dambeysay waxa uu ka keenay ilaa 10 iyo wax ka badan ayuu ka keenay. marka meeshaasna waa door fiican oo dhibco ay ka keeni karaan maamulayaasha. ninka kale ee farqiga ah waa Neil Mobay oo ka hor imaanaya kooxda Norwich. Neil Mobay wuxuu ka tirsan yahay kooxda Brighton waxaanu ka hor imaanaya Norwich. marka waa door kale oo maamulayaasha ay aad u fiirin karaan oo ay dhibco kaga tashan karaan. markaan fiirino hadda kabtanka isbuucana kabtanka ugu doorashada badan ama la qiyaasayo inuu noqon doono kabtanka loogu doorashada badan yahay waxa uu noqonayaa Mohamed Salah oo ka hor imaanaya kooxda Watford. ilaa hadda markaa fiirisid qaab ciyaareedka Mohamed Salah waxaad moodaa in ilaa goolasha asaa hogaaminayo hal abuurka marka la dhaho tuurista banooniga ee dhinaca Premier League asaa hogaaminayo. ilaa haddana 10 ka yar ma uusan keenin kulamadii hadda ugu dambeeyay oo isbuuc ciyaareedii waliba kii hadda ugu dambeeyay oo Manchester City oo goolka quruxda badan uu ka dhaliyay. kabtanka labaad ee toddobaadkan oo isbuuc ciyaareedkan la filayo inuu noqon doono kabtanka maamulayaasha inta badan ay saaran doonaan waa Kevin De Bruyne oo qiimihiisu uu yahay 11.9 oo ka hor imaanaya kooxda Burnley. ninka kalena waa Son oo isna ka hor imaanaya kooxda Newcastle. ninka kalena waa Romelu Lukaku ciyaartii hadda Southampton oo kale wax dhibco amuusan ka keenin oo la taaban karo laakiin mar kale waxaa la filayaa
in maamulayaasha ay aad ugu fiirsan doonaan oo dhibco kaga tashan doonaan. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo koobayaa, aad ay u mahadsantihiin. haddii aad weli kusoo biirin groupka WhatsAppka ee aan sameynay, fadlan linki hoose ayuu saaran yahay kusoo biir. sidoo kale YouTube-kana hubso inaad kusoo biirtay, sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada. dhinaca Facebook, Instagram-ka iyo Twitter-kana waxaan ku leenahay bogag oo halkaas nooga soo biir. aad ay u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.